haddii aad ku haminaysa noloshaada maalin uun inaad wax ka barato dalka Turkiga waliba adigoo lacag qaadanaya haatan waxaad daawanaysaa muuqaalkii ka caawin lahaa rumaynta riyadaada soo dhawow saaxiib si intaan ugu gudagelin barnaamijkeena waxaan kun iyo kow jeer ugu mahadcelinayaa halkan walaalkeen Cabdiraxmaan Cumar Waabari ahna milkiilaha Waabari Media oo ina bar saaxiibo cusub oo u wanaagsan sidii isaga oo kale sidoo kale waxaan leeyahay saaxiibada cusub waxaad timaadeen gurigiina ee ha ismarteenina waxaan haatan idinku soo dhaweynayaa fiidiyoogii idin fur lahaa caalamka waxbarashada bilaashka ah intaan u gudbin qaybta kombiyuutarka oo aan idin tusin sida loo xareeyo waxa rabaa horta 5 su'aal inaan ka jawaabo su'aasha koowaad waxa waa horta minxadan maxay tahay minxadani waxbarasho waa minxa ay bixiso dawladda Turkiga waxayna u soo bandhigtaa caalamka oo dhan wadan walibana waa uu xareysan karaa number 2 su'aasha labaad oo ah yaa xareysan karo waxa xareysan karo qof kasto oo haysto shahaado dugsi sare wuxuuna xareysan karaa master degree ama badge ama PhD waxa uu rabo laakiin waxa shuruudo ku xiran qofka badge xareysanaya waa inuu 21 sano jir ka yar yahay qofka master ka xareysanaya da'diisu waa inay ka yartaa 30 sano halka qofka PhD ga xareysanaya da'diisu ay qasab tahay inay ka yaraato 35 sano jir su'aasha saddexaad oo ah haddii aan xareysto oo barnaamijkan ii soo baxo maxaan ka faa'iidayaa qofka number 2 waxa uu helayaa meel uu dago number 2 waxa la barayaa luqadda Turkiga waliba si bilaash ah sidoo kale waxa la siinayaa waxbarasho bilaash oo jaamacadeed waxa kaloo la siinayaa lacag magaalo joog ah oo ku filan qofka sidoo kale caafimaadkiisa waxa uu noqonayaa mid free ah su'aasha saddexaad aan u gudubno maxaa qofka laga rabaa si uu xariisto programkan ama minxadan waxbarasho number 2 waxa laga rabaa qofka inuu haysto baasaboor ama dhalasho sugnaan sidoo kale waa inuu haystaa shahaado dugsi sare sawir teesaro CV iyo warqad markaasi recommendation letter ah haddii uu qofka master rabana waa inuu badge haysto iyo transcriptigiisa sidoo kale qofka badge-ka ah ee rabo masterka inuu xareysto ama PhD waxa laga rabaa inuu qoro warqad loo yaqaan letter of intent qaybta dambe ayaa ku sharxi doona haddaba sidee loo xareeyaa ayaan hadda u gudbeynaa ee fadlan kombiyuutarkaaga kala furo ilana soo adigoo raali ah marka ugu horeysa waxaanu furanaynaa Chrome-ka kadibna waxaanu ku qoraynaa Turkey Bursary ama Turkey Scholarship kadibna website-kan aan galaynaa kadib waxaan ka dooranaynaa login si aan email iyo password aan u sameysano waxaan tegaynaa marka hore registration kadibna meeshan ayaan xogteena ku buuxinaynaa waxaan ka bilaabaynaa magaceena waxaynu ku xijinaynaa magaca aabaheen waxaan ku xijinaynaa surname oo ah magaca awowaheen sidoo kale waxaynu gelinaynaa meesha genderka male ama female lab iyo dhadig waxa tahay kadibna waxaynu ku xijinaynaa taariikhda dhalashadeena maalinta dhalatay waxa ku xijinaysaa bisha kadibna waxa ku xijinaysaa sanadka wali waxaad u qoraysaa sida baasaboorka u qoran sidoo kale magaca iyo magaca awowaha iyo capital u qormaasi automatic dhib ma lahan dhalashada wadanka u dhalatay waa Soomaali sidoo kale meeshan kale waxa ku qoraynaa emailka marka emailka meeshan gelinaysa ha ahaado email caadi oo isticmaashid kadib mar labaad emailka soo celinaynaa haddana kadib waxaynu gelinaynaa passwordka sidoo kale passwordka waxa waajib ah xarfo iyo tirayaal isla socdo inuu noqdo sidoo kale meeshan kale oo arkaysid waxa ku qoran secret question oo ah su'aal adiga ku gaar ah aadan ilaawin oo kale ina meesha ku qorotid anaga haatan waxa isaga qoraynaa meeshan isha aqoonta kadibna I am not robot aad tig saaraysaa kadib I approve ayaa tig sii saaraysaa haddana waxaynu ku dhufanaynaa save taas ku dhufanaynaa kadib xogtaan oo noo soo saara wajhadan yar oo attention-ka ayuu noo soo saara waa iska hubeynaa xogta haddii xogteen wax ka qaldan yihiin edit aan dhihi karnaa haddii wax ka qaldan I approve aleena kadibna save aleena meeshaan save gareyso si aynu xogta kaaga dhumin kadib gmail-kan tagaynaa gmail-ka markii aan tagno halkaas ayaan waxa ku soo dhufaynaa marka activation-ka link activation aan ku dhufaynaa activation-ku wuxuu ku imaha adiga markay uu yartahay 1 daqiiqo ilaa 5 daqiiqo kadib waa ku dhufanaysaa kadib sidaas ayaa active ku sameynaysaa waa kana waa soo dhacay sida u jeedaan activation belgisiya ku qoran kadib linkiga aan ku dhufanaynaa wuxuu si toos noo geeyaa markaasi portalkii aan furanay hadaad kadibna si toos aan u galaynaa waxayna bilaabaynaa markaas xareysashada application-ka ana safaha ku dhufaynaa home page laga wada kadib login aan ku dhufanaynaa kadib waxa inoo soo baxayo portalka ama shaashadan ay u jeedaan qaybta bidixsi ay u jeedaan portalkan
waxaa ku qoran personal information, family information, contact information, education information. marka sidaa ujeedii ilaa language details waxaa ku qoran hortooda haddaa fiirisid calaamado oo gudguduud ah. laakiin work experience iyo academic iyo haddii aad fiiriso my application iyo social activity waxaa ku qoran kalar jaalo ayay kula qorayiin. kuwa kalarka jaalada ku qoran waajib ma ahan inaad buuxiso, laakiin kuwa kalarka guduud ku qoran mid waliba xogtaada waa inaad ku buuxisaa. haddii aadan xogtaada ku buuxinin applicationka hore ma usii wadi kartid, laakiin kuwan jaalada ah waajib ma ahan inaad buuxiso, waa ka tegi kartaa adoo wax ku qorin. haddii aad xogtooda haysatidoo ku qortidne jaaniskaaga guulaysashada aad ayuu u badanayaa. haatan waxaan ka bilaabaynaa sawirka inaan gelino. sawirka waxaan u geli karaa laba hab, inaan juice filekaas aan ku dhufano ama inaan kusoo jiidno. labada habba waa ku geli karnaa sawirka. kadib markaan sawirka soo gelino sidaanaan sawirka u leekeysiyeynaa meesha anagoo kiligta ku dhagan iyo muuskeena. kadib okay aan dhaheynaa. xogteena horaan usoo gashanay, haddii wax naga qaldan yahay ilaa haatan waan sixi karnaa, wax waa ka bedeli karnaa. kadib qaybtan dhanba waxaa gelihaynaa qofka xaaladiisa, yacni inuu guur soo maray in kaleete iyo inuu single yahay. single aan hadda dooranay. kadib waxaan gelihaynaa markaasi qofka meesha uu ku dhashtay, wadanka uu ku dhashtay Soomaaliya aan ku dhalanay. kadib waxaynu dooranaynaa isla magaalada uu ku dhashtay. hadda tusaale ahaan oo kaleeto waxaa dhacda mararka qaar magaalada ku dhashato si toos waa ka weey kartaa. kadib waxaa samaysaa degmo u dhawaa ku qoraysaa. hadda laakiin waan ka helnaa anaga magaaladan ku dhalanay. kadib meeshan waxaan ku qoraynaa nooca yacni dokumentigeena. waxaan kugula dardaarmi lahaa inaad isticmaasho baasaboorka. kadib meeshan waxaan gelinaynaa baasaboor numberkeena. fadlan aad ayaan ugu xumahay inaan idiga qariyo qofkan xogtiisa, waayo waxa waaye personal privacygiisa waaye, ogolaasho uma qabo inaan idiin soo muujiyo. laakiin wax waliba aan sameeyo afka ayaan ka sheegi doonaa, adinkana meesha waa ka sameey kartaan. intaasna aadaan idinkaga raaligelinaa. kadib type of passport waxaan ku qoraynaa nooca baasaboorka aan haysano waa B waaye. kadib country code of passport waxaan ku qoraynaa SOM oo loo soo gaabiyey Soomaaliya. kadib meeshaan ay ku qoran tahay passport document laba jeer kili ku siiheynaa. waxaan soo geliyeynaa baasaboorkeena. kadib hoosaan u gudbaynaa. waxaad sheegaysaa markaasi diinta haysato. islaam sunni aan ahnay alxamdulillah. meeshaan islaam sunni ka dooranaysaa. kadib muhiim ah kuwan kaleete disability, I have no disability, yani wax oo problem ma qabo. kadib save aan dooraneynaa. saas waxaan ku buuxin hadda personal information keena waa intaas oo kaliya. kadib waxaan u gudbaynaa hadda qaybta labaad oo ah family information ama qoyskeena xog ku saabsan, warbixino ku saabsan qoyskeena. haddana u gudbaynaa qaybta qoyska. waxaan ka bilaabaynaa hooyada magaceeda saddexan. kadib waxaynu meesha kala dooranaynaa hooyada ma nooshahay mise ma noolo. way nooshahay aan dooranaynaa. haddii ay dhimatana Allah u naxariisto waxaan rajaynayaa inay nooshahay. kadib waxaan u gudbaynaa qaybta aabaha magaciisa qoraysa asigane sida baasaboorka ku qoran. waliba ku dadaal inaad ku qorto xog waliba, waayo adiga waxa tahay wax sheegayo waa baasaboorkaaga. halkan waxaa ku qoraynaa aaba magaciisa, waliba sida baasaboorka uu qoran ku dadaal inaad u qorto xogtaada. haddii uu aabaha nool yahay waxaad doorataa yes, haddii uu geeriyoodan Allah u naxariisto waxaad doorataa no. kadib meeshan waxaad gelinaysaa inta walaal ay kula dhalatay 8 ruux. qaybtan hore u soo gelina single-ka. kadib waxaad gelinaysaa hooyada ma shaqaysaa, maadaama uu aaba geeriyooday waxaa qasab cidda in qof ka mid ah yani dakhli uu soo geliyay. marka hooyaday way shaqaysaa oo kala leedahay, yani shaqo uu inaa u sheegto isku day tali ahaanteeda, maadaama uu qasabtaa in qof dakhliga soo geliyo cidda. anaga waxa iska doorano waa shaqaysaa shaqo, way shaqaysaa hooyo. kadibna waxaynu dooranaynaa qaybta lacagta. qaybta lacagta waxay ka bilaabataa dakhliga cidda soo gasho waa eber ilaa $50 ilaa $1,000 ugu badan. kaba soo qaad haddii aad doorato in familkiina ay $1,000 soo gasho, maxaa ugu baahan tahay macnaha nin isku filan oo reerkiisa isku filan yihiin aad tahay. kadib save aan ku dhufanaynaa. marka $100 ilaa $250 dooranaa. kadib waxaan u gudbaynaa qaybta saddexaad. waxaa waaye inaan ku qorno xogteena meesha nagala soo xiriiri karo. numberku waxaynu ku qoraynaa wadanka joogno. waxaynu raacinaynaa magaaladan ku noolnahay oo joogno. kadib qaybtan postal code-ka, dalka postal code ma lahan. hadaarta ewer ku buux, hadaarta iska dhaaf. kadib waxaa u soo wareegsanaysaa numberka, phone numberka iyo mobile numberka. waxaa sameyn kartaa laba number oo kale haddii aad haysato, maadaama badanaa leeleen iyo waxaas aan isticmaalin. phone numberka iyo home numberka laba laf haddii aad isticmaasho labada number ku kala qoro. yani haddii kan lagaaga soo xiriiro lagu waayo si midka kale lagaaga helo.
ama mid kamid ah waa ku qoran kartaa. anaga mid kamid ah lay ku qoranayna mobile phone-ka ayaan ku qoranay. kadib meeshan street yani xaafadiina meesha ugu caansan oo kale taa ku qoran kartaa. anaga kilometer 4 oo kale isaga qoranay. kadibna save ayaan dooranaa marka. sidoo kale meeshan yani meesha sheegatay ilaa iyo goorma deganeed address-kan ilaa iyo sanad iska dhehena ayaan ku nooleen meeshan. kadibna waxaan dooranaynaa save ayaan dooranaynaa. social media haddii rabto waa geli kartaa ciwaanada social media, haddii rabto waa iska dhaafi kartaa, muhiim maahan ayadana. fadlan mar waliba waxaa ku dadaashaa inaad save garayso xogtaada. haddii aadan save garaynin tig ma saarayo. tusaalahaan oo kale hadda contactiga tig oo saar waa ujeedaan. kadib waxaan u gudbaynaa qaybteena afraad oo ah education information-ka waxbarashadeena. haddii aan rabno inaan master xareysano waxaan gelinaynaa shahaadadeena dugsiga sare iyo shahaadadeena baajka. haddii aan rabno inaan baaj xareysano kaliya shahaadadeena dugsiga sare ayaan gelinaynaa. anaga hadda dokumentigan waxaan u isticmaalaynaa masterka, qof master aan u xareynaynaa. marka haddii aad haysato sidoo kale middle school yani shahaadada dugsiga dhexe haddii aad haysatana waa geli kartaa, laakiin waajib ma aha ayada. kadib xogtaan ku buubuuxinaynaa shahaadada dugsiga sare halkay ka qaadanay, wadankay ka qaadanay, Soomaaliya ka qaadanay, haddii aad Kenya ka qaadatay ama Ethiopia ama Djibouti meesha ka qaadataa ku qoraysaa. kadib waxaad dooranaynaa Muqdisho yani meesha ka qaadatay iskoolkaada meesha ku yaal. kadib iskoolka magaciisa aan ka dooranaynaa. anaga iskoolkeen Anatolia Educational Center waaye. kadib waxbarashadaan ka dooranay dugsi sare waaye, shahaadadan gelino systemka. kadib waxaa ka dooranaysaa dugsiga sare ka soo baxda muxuu ahaa, general mu ahaa, school diini mu ahaa oo kaleete, ama wuxuu ahaa vocational waxa la iskuulka farsamada oo kale, ama caafimaadka ama artiska lagu barto, ama beeraha oo kaleete. marka anaga dugsi sare oo beerahan ka soo baxnay, marka dugsi sare beerahan dooranaynaa. kadib waxaan dooranaynaa halkan kaleete, waxaynu kasii dooranaynaa major fieldigeena agriculture oo ahaa hore u sheegnay. halkan statuska waxaan ka dooranaynaa waa qalin jibine, maadaama iskoolkeena qalin jibine. waxaan halkan gelinaynaa xilliga aan bilaawno dugsiga sare. halkan waxaan gelinaynaa xilliga aan dhamaystirnay dugsiga sare. qaybtan waxaan ka dooranaynaa markaasi shahaadada dugsiga sare ee dawladda. waxaa qasab inay dawladda ahaato. hanaanka horeeta 100 leey ahay jirtay, 100 lagu sii jiray hadda laakiin xarfaa laga dhigay. marka haddii ay shahaadadaada tahay 2018 wixii soo baxay ama ka horeeyay, dabcan waxay noqon doontaa nambaro oo 100 lagu saxay 100 aad dooraysaa. kadib waxaad dooraysaa grade-ka kugu qoran. haddii aynan ahayn ee xarfa tahay oo 2019 wixii ka dambeeyay inay xarfiin aan jecelahay, marka haddii ay xaraf noqotana xarafka ka dooraysaa. kadib waxaa geliyaysaa markaasi xarafkii aad keenta, ama A ha ahaado, ama B ha ahaado, ama C ha ahaado. kadib waxaad dooranaysaa diblomadaada meeshaan soo geliyaysaa. transcript meesha transcriptiga diblomada mar labaad ku soo celiyaysaa ayada, maadaama shahaadada dugsiga sare ee labadooda isku wada qoran yihiin buundada. iyo sidoo kale waxaan ilaaway inaan idiin sheego qofka xareysanayo scholarship-kan waxaa shardi ah inay buundadiisa ka badan tahay 75%. 75% haddii ay buundadaada ka yar tahay waxaa waaye dembi dhaaf Allah kaaga dhigo. 75 qofkii buundadiisa ka badan tahay oo kaliya xareysan karo. kadib waxaynu gelinaynaa achievement hore mu gaartay iskool oo kaleete. haddii aad kaalin hore usoo gasho kaliya saadhaysaa intee kasoo gashay. haddii aad kaalintee gasho kuwaad 2 3 aad dooranaynaa. kadib haddii aad shahaado ka haysatid shahaadadaas aad dooraysaa. haddii aadan ka haysan kaalintaa gashay shahaadana waa iska dhaafaysaa. kadib see faariixaysaa tigaa kuu saarmaayo. kadib waxaa u gudbaynaa qaybta bajularka. sidii aan dugsiga sare u buuxinay xogteeda ayaan shahaadadan baajkana u buuxinaynaa. waxaynu joognaa qaybtii bajularka. waxaynu gelinaynaa wadanka ka qaadana bajular degree-geena. kadib waxaan gelinaynaa magaaladii aan ka qaadanay. kadib waxaan dooranaynaa jaamacaddii aan ka qaadanay. jaamacad alaale jaamacaddii aad ka qaadato Soomaaliya ku taalo oo la aqoonsan yahay way ka soo bixaysaa liiskan. jaamacadda magaceeda marnaba ma ka weydii doonto meeshan. marka gelaad Zamzam oo kale 2 jeer ay noo soo baxday. marka mid kamid ah iska dooranaynaa, labadooda waa isku mid. kadib waxaan ka dooranaynaa faculty-gii aan ka soo qalin jibinay baajka wuxuu ahaa beeraha. kadib waxaan ka dooranaynaa department beerale oo ahaa. kadib waxaan ka dooranaynaa ma wadnaa cashirka hadda maan qaadanoonaa mase waan qalin jibinay. waan qalin jibinaa dooranaa. haddii aad semester 7 maraysane oo sanadkan qalin jibinaysanne waxaad dooran kartaa weli continue waa wada. kadib waxaynu gelinaynaa meeshan taariikhdii aan jaamacadda bilownay iyo
taariikhdii aan jaamacadda dhameynana meeshan ayaan geliyeynaa. kadib waxaan geliyeynaa grading systemka. jaamacadaha badanaa waxay isticmaalaan grading system oo 4 ah. marka 4 inaan isticmaalnaa meesha ku sheegaynaa. kadib transcript qaybtii gradingka meeshay ku qoran tahay, xisaabta ku qoran ayaan meeshan ku qoraynaa. number 2 waxaan ku qoraynaa intaa keenay, yani 1 2 3 4 qofka ma ka badan karo. intaa keentay grade-ka dooraysa, tusaalaan 3 keentay, 3 keentid, 3 maxaa ku raacsan, waxa ku raacsan qaanadan kale taa ka dooraysa. yani haddii uu eber ku raacsan yahay ilaa 99 wixii ku raacsan qaanadan ayaad ka dooranaysaa ayadana. qaybtan waxaa soo geliyeynaa shahaadadiina bachelorka diplomada. qaybtan kalena waxaa soo geliyeynaa transcriptigeena bachelor degree-ga. sidoo kaleete jaamacadda oo kaleete haddii achievement ka gaartay waxaad geli kartaa yes waa gaaray, kadib sidii hore taa waxlaysaa. haddii aadan gaarin waa ka gudbaysaa oo safe riixaysaa, ayadana tigaa noo saarmatay. haatan waxaan buuxinay qaybtii afaraad. sidoo kaleete haddii tusaale ahaan oo kale rabtid inaad controlshid meeshaas ku dhufanaysaa editka si aad u ogaato xogtaada inaad hubisid, xogtaada dib inaad u akhrisid. haddii aad rabto editkaasaa dooranaysaa. haddii wax kaa qaldan yihiin oo kaleete si aad u bedesho, haddii wax kaa qaldanin aad hore ugu socotid safe aad dhehaysaa. marka edit furti safekaas ilaahin fadlan. kadib bachelorka haddana controleyna xogteena waa noo dhammaystirantaa, waa noo buuxdaa, shahaadada way noogu jirtaa, transcript waa noogu jiraa meesha. kadib safe haddana dhehenaa. qaybta educationkana saasaa ku dhammeynay. waxaan u gudbaynaa qaybta waajibka oo languageka luqadda. luqad maxaa taqaanaa? number 2 luqadda af Soomaaliga aan naqaanaa, luqadeena hooyo ah. kadib waxaanu dooranaynaa safe. kadib haddana waxaan gelinaynaa luqadaha kale oo naqaano. tusaalahaan oo kale qof walba oo Soomaali wax ku bartay English qasab waa inuu yaqaano maadaama waxbarashada English ku baxdo, ama Carabi tii aad taqaano. Englishka darajada intuu gaarsiisan yahay oo kala dooranaysaa. haddii Carabi uu ku dheer yahay Carabi ayaa raacsanaysaa. levelkaaga Carabiga intuu gaarsiisan yahay. badanaa ardada jaamacadda Samsam ka soo baxoo kaleete koorso oo Turkiga qaataan. marka Turki waa u bilaaban yahay, marka Turki waa noo bilaaban yahay lana beginner aan ahnay. marka waa safe gareeyna ayadana. sidoo kaleete Turkish language su'aal kala inta taal Turki ma ku hadli kartaa lagu dhahay, waa ku hadli karaa. shahaada ma ka haystaa? maya, shahaada kama haysto. darajadaada intee u gaarsiisan yahay heerkaaga? bilaaw ahay. intee ka baratay Turkiga? ama ana isbaraa dhigi karta, ama YouTube ka bartay haddii aad adiga isku bartay, ama jaamacadda cashir ahaan ugu soo qaadatay, jaamacadda magaceeda ku qori kartaa meesha ku baratay. haddii aadan ku baranna ma barnaa dhigi kartaa, dhib ma lahan. wax dhib ay ku keenaysa ma lahan. waajibna ma aan inaad xogtaas buuxisid qaybtaas luqadda. kadib waxaad galaysaa qaybtan work experience-ga. haddii aad haysato shahaado oo meelaha ka shaqeysa lagaa siiyey waad gelinaysaa. haddii aadan haysanna qasab ma ah, waa ka gudbi kartaa. yani work experience-ga iyo academic qualification-ka iyo social activity-ga saddexdaas waajib ma ah. laakiin haddii aad haysato waxaan kula dardaarmi lahay inaad gashato. tusaalahaan oo kale shahaado oo shaqo weynu haysanaa, jaamacaddan ka soo shaqeynay. marka engineer ahaanna waa ku soo shaqeynay, positionka engineer waaye. marka meeshan waxaa la weydiiyaa shaqada hadda mootaa ma ku jirtaa mase waa kasoo tagtay? waa kasoo tagnay. kadib waxaan gelinaynaa xilligii aan shaqada bilownay ilaa waxaan dooranaynaa xilligii aan shaqada dhammaystirnay. kadib waxaa lu leeyahay xog ka bixi, yani shaqadii aad qabatay maxay ahayd? xog ka bixi, faahfaahin yar aad ka bixi kartaa, wax badan looma baahno. 7 xaraf aad kusoo koobi kartaa haddii aad rabto. 8 xaraf. muhiimaddu waxaa waa bis shaqadii aad qabatay inaad meesha ku xustid. wax ka mid ah production manager ahaan greenhouse ugu shaqeynay. meesha ugu muhiimsan qaybtan fadlan ha ilaawin waa CV-ga. sidoo kaleete haddii aad haysato awaad lagu guddoonsiiyo kaleete, ama certificate aad meel ka qaadatay, ama wasaaradda ha ahaato, ama ha ahaato meel program aad ka qayb gashay, meeshaan aad geliyaysaa. marka anaga certificate haysanaa, certificate of achievement haysanaa, meeshaan aan ku qoraynaa. kadibna waxaan gelinaynaa taariikhdii aan qaadanay. shahaadada haddii aad haysato taariikhdii way ku qorantaa meeshaas lay ka fiiri, taariikh hebel aan qaadanay. kadib waxaan u gudbaynaa institutionka aad ka qaadanay
ama iskoolaan ka qaadanay ama jaamacadaha ka qaadanay shahaadada ama wasaaradaha ka qaadanay meel alaal meeshaan ka qaadanaa meeshaan ku qoraynaa anaga hadda waxaan ka qaadanay wasaaradda beeraha iyo waraabka marka meeshaan ku qoraynaa kadib qaybtan kale waxaan ku qoraynaa markaasi waxa aan qaadano maxay yihiin qaybtan waxaan ku qoraynaa yani waxaan qaadanay certificate kan qaadanay muxuu ku saabsan yahay fildigo ku saabsan yahay la weydiiyay marka agriculture ka dooranayna kadib laba jeer kali meeshaas ku siiyayna waxaan soo galiyeynaa markaas awaadkii ama shahaadadiina la guddoonsiiyay kadibna macluumaadkeeda meeshaan ku qoraynaa yani xog ku saabsan shahaadadan waxaa la ii siiyay inaa xogtaas dhammaystirtay ama inaa koorsadaas qaatay oo kale kadibna seefa dhehena sidoo kale meeshaan volunteer activity haddii aad barnaamijyo ka qayb gasho oo si free ah sida NGO ama institution si free ah ugu shaqeysay oo document kaysato xogtiisa buuxin kartaa haddii aadan kaysan waa ka tegi kartaa Turkiga hore mu maanta mayaan dhahnay scholarship kan xagee ka maqashaa leedahay marka waxaa dhahay saaxiibadan ka maqlay hadda Turkiga ma ku nooshahay maya weligaa ma booqato Turkiga oo kale mayaan dooran ayadana kadib saasan ku dhameysanay qaybta koowaad ee application-keena qaybta labaad si aan u gudubno waxaan riixaynaa homepage markaan riixan waxaan ka dooraynaa master haddii aad bachelor tahay oo badge haddii rabtid meesha badge ka furaysaa haddii aad badge soo qaadato oo master rabtidna qaybta master ka furaysaa kadib waxaa leedahay I accept laakiin intaana I accept dhihin fadlan xogtaada iska hubi waayo haddii aad qaybtan marka baxdid oo qaybta labaad u gudubtid inaad meeshaan u soo noqoto wax ka bedesho way adkaan doontaa marka qaybta intaan ka gudbin oo qaybta labaad aan u gudbin oo I accept aanan dhihin fadlan hubi xogtaada digniin yara meesha ku qoran marka xogteen waan soo hubin anaga hadda kadib waxaan horaan u galeynaa qaybta labaad u gudbeynaa qaybta labaad markuu horeyso wuxuu noo soo gudbiyay xogta nagala rabo kaleete marka waan akhriyay waan aqbalay shuruudaha dhanaa dhahnay kadibna save aan dhahnaa marka adiga jawi degan waqti ay haysataa ku akhriso anaga inuu nagu dheeraado fiidiyoga diideena kadib meeshaan waxa lagu ogol yahay 12 jaamacadood inaad doorato iyo 12 department yani beeraha hor soo sheegnay beeraha 12 department kamid ah waan dooran karnaa sidoo kale waxaan dooran karnaa haddii aan rabno department aan anaga xiiseynayno laakiin department-ka aan dooranayno wuxuu ku xiran yahay ciwaanka aan qaadanayno yani haddii aad xasuustaan waxaa idin dhahay waxaa la iska rabaa wax loo yaqaan letter of intent-gaas ciwaankaad ka qaadato ayaa wuxuu go'aamiyaa department-ga aad dooraysid tusaalahaan oo kale field crop aan rabnaa letter of intent-ga aad diyaariyeen waa inuu ciwaan field crop ku saabsan uu noqdo marka asxaabta ogeyn letter of intent wuxuu yahay waa kana 7 su'aal laga rabaa inaad ka jawaabtid oo diyaarsidid marka barnaamijka intaadan furin ka hor aad diyaarsan kartaa inaad ciwaan doorato number 2 ciwaankaas wuxuu ka hadlayaa sharaxdid kadib research question sameys waa qof asoo sameeyay cilmi baaris amal thesis book asoo qorayo kale to waa haddii bachelor tahay waad fahmi kartaa kadib su'aasha saddexaad inaad ka shaqeyso ah maxaa ciwaankan u dooratay su'aasha afraad waxa haddii aad minxadan hesho research-ka hanaankee aad u mari doontaa su'aasha afraad waxa waaye su'aalihi aad qorato research questions oo 3 xabo ilaa 5 xabo ahay inaad jawaab hordhac ka bixiso kale su'aasha lixaad oo kale waxay ka hadlaysaa yani cilmi baaristan aad sameyso maxay qaybta akademikada maxay ka qayb qaadanaysaa yani tusaalahaan oo kale beeraleydii saacidaysa ama waxay ka qayb qaadanaysaa horumaray ka qayb qaadanaysaa inaad dhaliso kale su'aal waliba horteed haddii aad fiiriso waxa ku qoran yani ugu yaraan 75 eray inaad qortid ilaa 300 oo eray marka ChatGPT isticmaali kartaa hadda marka AI kale haddii aad taqaan ayadana waa u isticmaali kartaa su'aalaha inaad ka jawaabto department marka rabto inaad doorato fadlan waxa ku dadaashaa inaad doorato tuulooyinka yani gobolada inaad doorato fadlan ku dadaal oo ha dooran Istanbul Ankara iyo Izmir waayo saddexdaas magaalo oo waaweyn haddii aad doorato jaaniska ku guuleysan karto aad ayuu u yaryahay marka magaalooyin kale ama gobolada kale aad ka caan ku ahayn dooro marka markii aad department-ga aad dooratid waliba aad dooratid magaalo yar oo zaid caan u ahayn gobol yar markii aad dooratid waxaad ku dadaashaa inaad safe sii riixdo tusaalahaan oo kale anaga hadda waxaan dooranaynaa Urdu oo kale taan dooranaynaa Urdu University oo kale taan dooranaynaa horticulture kadibna safe ayaan sii dhahaynaa marka hal department iyo hal jaamacad hadda iga bax 12 jaanis kale ii banaan waxaa ii banaan ilaa hadda 12 jaanis kale jaaniskii labaad waxaan ka dhigaa
field crop tusaalahaan oo kale taan ka dhigaa ama waxaan ka dhigaa food engineering waxa rabaan ka dooranaa field crop tusaalahaan ka dhigay waxaan ka sii dooranayaa gobolkee doortaa gobolkee Spartan iska doortay adigna saas camal gobol aan zaid caan u ahayn dooro si uu jaaniska ku guuleysan karto aad ugu bato intaas waa dardaaran guud kid waxaan doortay smart agriculture marka saas camal u dooran kartaa adigana ilaa iyo 12 departmentiga waxaa sameyn kartaa tusaalahaan oo kale horticulture-ka aad u xiisay aniga horticulture-ka 3 jeer soo celi karaa laakiin waxa shardi ah in jaamacado kala duwan ay yihiin 3 jeer yani tusaalahaan horticulture-ka haddaan jaamacadan ka waayo jaamacadan kale saa ugu helo si aan gobol kale ugu helo marka waa inaan departmentiga xiisay 2 jeer ilaa 3 jeer soo celi karaa asiga maadaama aniga xiiseynayo departmentiyadan kale oo aan dooranayna waxay iga saacidayaan jaaniskii inaan scholarship ka helo yani Soomaalidu waxay tiraahdaa hadii aan meeshan wax yar ku kaftano tugsada dooq ma lahan macnaha adiga dooq malid nasiibkaaga iyo waxa waaye wixii aad heli karto waa inaad iska qaadataa oo ku qanacda marka 12 department ilaa 12 gobol oo kala duwan aan saas ku dooranayna marka qaar oo kale English laga heli karaa oo kale the food engineering oo kale English meesha ugu jeedna aydan nasiibkaaga iska tijaabi inay kugu adkaataa laga yaabaa luqadda Turkiga marka English hor u taqaan Englishkaaga nasiibkaaga ku tijaabi hal iyo labo laakiin Turkiga ha u bato waayo ujeedada scholarship kale isku siiyay ugu weyn waxa waaye in aad dhaqanka Turkiga baratid luqadda Turkiga aad baratid markii aad masterkan dhameysana aad noqoto qof waxa waaye jismi ahaan Soomaali ah laakiin qalbi ahaan Turki ah intaasna waa sir aan iyo adinka naga dhaxeyn doonto insha Allah marka waan dhameysana kadib meeshaan aan tig saarayna kadibna safe ayaan leena yani meeshaan aan tig saarayna waxa waaye departmentiyada aad dooratay waxaan ahayn hadii aan ku helno diyaar ma u tahay diyaara u ah raali iyo nus u ah meeshaan aad dooranayna kadibna waxaan u gudbaynaa qaybta letter of intent marka wayno diyaarsantaa letter of intent waxaan waadan ku soo qornaa mar hore waxayna soo diyaarsanay marka hadda waxa sameeynaa copy paste oo kaliya marka ciwaankeena hore noogu diyaarsanaa ciwaanadii hore noogu diyaarsanaa oo kaliya copy paste soo dhan qaybtan dhan copy paste waay marka ugu horeyso waad soo diyaarso waadka soo diyaarsato copy paste oo kaliya ka soo dheh hadana analysis of problem aan copy soo dhaanayna paste ayaan meesha ku dhaanayna marka xogtaan waa diyaariye adinkana saas oo kale si la mid ah xogtaada diyaarso marka waliba ChatGPT isticmaali kartaa daarabto Soomaaliina waa laga furay sidaan maqla aniga ilaa haatan Soomaaliina tay kuma isticmaalin marka qaybtan kalena waa copy paste leedahay qaybtan dhan letter of intent copy paste oo kaliya marka hawsha aad muu adka saaxiibayaal aad ay u fududahay waxa waa computerkaaga inaad qaadatid jawi degan aad fariisato oo kaliya ka xigto inaad dokumentiyada aan hore u soo sheegnay sida baasaboorka iyo shahaadooyinka ah haysato kaleete shahaadadaada waliba xataa inay tasdiiqnaato waajib ma ah ayadoon tasdiiqsanin shahaadadaada waa gashan kartaa tasdiiq iyo waxa lama fiirinayo hadda laakiin markii ay ku soo baxdo interview la gali doonaa interviewga markii la gali kadib hadii aad ku guuleysato minxadan kadib aad tasdiiq lagu diri doonaa marka insha Allah qoladii oo ka gudubto wareegan koowaad ee interviewga u soo gudubtane waan caawin doonaa iyadana insha Allah WhatsApp group aan sameyn doonaa marka meeshaasaan su'aalihii la weydiin lahaa oo kale taan kala naqaashi doonaa sidaan sanadka hore sameynay sanadka hore asxaab inaga horeysay aan ku garab qabano oo kaleete marka maadaama channelkeena uu yahay caawi YouTube waxaan rabnaa inaan Soomaalida iyo qof waliba Soomaali ah inaan caawino marka adinkana waxaan ugu caawisaan inaad subscribe saataan channelkeena oo aad share gareysaan oo asxaab badan gaarsiisaan xitaa hadii aad dokumentiyada aadan haysanin waxa jira walaalka jaamacad dhameeyay oo dokumentiyadiisa haysto balse aanan ogeyn barnaamijkan ama aanan aqoon sida loo xariisto marka codkan in ay gaarsiisina aad u jeclaan lahay kadib hadii aan dhameyno waxaan dooranaynaa save meeshan waxaan leeyahay hal waxa ku dhiman meelaha ka soo boodaa leedahay mujada marka meeshaas u laaba meeshan ka soo boodo waa additional information wax ma aan ku soo qorin marka additional item kan hadii aad wax ka qaldayin tusaalahan oo kale waxa dhacday marka qaar qofka magaca ugu dambeeya wuxuu yahay gacal oo kaleete
marka baasaboorka apostrophe looma yeelo laakiin shahaadooyinkaaga apostrophe loo yeelay meeshaan ku sheegi kartaa marka dhibaatadaas ay jirto ama tusaale ahaan oo kale degmada ku dhalatay liiska ka weysay haddaad saas soo sheegnay degmo u dhow dooratay degmadaas u dhow maadaama aad dooratay meeshaan ku cadeey kartaa degmadaas aniga ku dhashay laakiin liiska waa ka waayay degmadaas aan doorto waa dhigi kartaa sidoo kale waxaa ku qori kartaa waxaan rajeynayaa inaan manxadan ku soo baxo wixii aad jeceshaa meeshaas ku qori kartaa kadib save ayaan dhahaynaa hadda waxaa u gudbaynaa interview location inteen markaas interview ku galaynaa barnaamijka hadda ku guuleysano Soomaali laba meel lagu galaa waa Muqdisho iyo Hargeysa marka haddii aad Muqdisho joogto Muqdisho aad dooranaysaa haddii aad Hargeysa joogtana Hargeysa save aan dooranaysaa reference information ka ama recommendation letter ki aan dad idin sheegay ee hal xabo ilaa laba xabo waxa heli karto meesha lagu qorayo meeshan waaye adkaas aan dooranayna isagana recommendation letter ka ama reference information ka qofkana siiyay aan meeshan ku qoraynaa marka magaciisa aan ku qoraynaa oo saddexan waliba sida ay ku qoran tahay recommendation ki lagu siiyay marka waliba waxaan kula dardaalmaa recommendation ka inaad ka soo qaadato kuliyadaada dhiinkeeda ama kuliyadaada secretary-geeda oo waliba team baraha jaamacad uu saaran yahay yani dhiinkaaga wuxuu ku soo qorayaa qofkan ardayga ardaydal badan waaye 4 sano dhiin u ahaa maadooyina u soo dhigay marka waxa laga baahan yahay nin oo ka hadli kara adiga wuxuu ogaal loo baahan yahay inuu ka gudbiyo marka meeshan waxa ku qoraysaa numberkiisa waliba numberka meesha ku qoran recommendation letter-ka kadib qaybtan kale waxa ku qoraysaa email-kiisa qaybtan kale waxa ku qoraysaa markaasi qofkan ku siiyay recommendation-ka institution-ka hoostaga ama company-go leh marka qaar waxa dhici karto kale company-ga ka shaqeysa company-ga ka shaqeysa naftirkiisa recommendation ka qaadato waa gali kartaa xogtiisa adoo ku qoraysid waxa baa company-ga ninka iska leh yani ama ninka uu sareeyo kaleete xogtiisa waa gali kartaa meeshan waayo qofkaas adoo recommendation ka bixiya adoo tala bixin ka bixiya qofka tahay inaad tahay qof karti badan qof dadaal badan qof ka soo bixi kara manxada inaad ku cadeeha meesha kadib waxaan dooranaynaa recommendation keena meeshan soo galinaynaa recommendation kan academic mo la xiriira waliba department-ga mo la xiriira ha aan doorana marka haddii aad haysato recommendation labaad waad ku darsan kartaa haddii aadan haysanne halkaas xabo way kugu filan tahay laakiin aan ahaanteeda haddii aad tale iga rabtid laba xabo inaad ka dhigato ayaan kula tali lahaa waayo suuqan dadka ku tartamaya aad ay u badan yihiin yani dawladda Turkiga waxay rabtaa oo kaliya 5,000 oo arday inay soo qaadato marka waxa macquul ah inay 50,000 oo arday soo xariisato marka 50,000 oo arday si ay ugu soo baxdid yani dadka kula tartamaya waxyaabaha ay sameeyaan waxyaabo ka duwan inaad sameyso ayaa laga baahan meeshan waxaan ku qoraynaa qofka numberkiisa recommendation-ka sidoo hore oo kaliya waaye xogta hore aan soo buuxin oo kaleete ana meeshan ku buuxiyayna ayadana kadibna save aan saarayna tusaale ahaan oo kaleete qofkan xiriir lama lahan academic oo kaleete meelaha ka shaqeeyo oo kale waaye marka this information belongs to my academic reference in adahid ama inaad tig saarto waajib ah waa ka tagi kartaa save taas oo kaliya ilaawin marka muuqaalka aad ayaan u dheeray aad aan idiga raali geliyaa laakiin haatan waxaan soo gaarnay guntigii iyo gabagabadii kaliya waxaan oo dhiman inaan yes saarno yani scholarship kan ama Turkey scholarship kan haddii aad weysid inaad hesho Islamic Diplomatic Bank diyaar ma u tahay yes yani labadooda waa xariisan kartaa ama Turkey scholarship ah helaysaa haddii aad weysid waxa macquul ah inaad heshid Islamic Diplomatic Bank sidoo kale yes waxaan dhan yes dooro haatan xogteen waa gabagabeynay marka meeshan waxa noo yaal wixii aan soo gelin liiskeena dhan aan meeshan yaalo marka submit hadda ma dhihi karo meeshaas waa inaan tig saaraa meeshaas marka tig saara fiir hadda submit hadda waa dhihi karaa laakiin hadda submit inaad dhaho marabo waxa rabaa dokumentiga inaad soo jeeg gareeyo oo soo fariisiyo oo waqti ku qaataan rabaa dokumentiga maadaama application-ka aan xareysanayo tartamayaal badan ay ku jiraan waxaan rabaa tartamayaashaas inaan wax kaga duwanaado sidoo kale marka application-ka dhameysato waxaad ka degsan kartaa application-kaada my application meesha ku qoran tahay ka degsan kartaa marka meeshaas ka degsato wixii ka saacidaysaa hadhow interview-ga markii lagaaga waco wax kale ma lagu weydiin doono waxa lagu weydiin doonaa waxa meesha ku qorato oo kaliya yani CV-gaada wixii ku saabsanaa jaamacadaada kuliyadaada department-ga waxa ku doortay waxa lagu weydiin doonaa oo kaliya letter of entity aad diyaarinay waxyaabo ku saabsan marka saaxiibayaal meeshaas aan ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena
haddii aan muuqaalkan idigu dheereeyay aad ayaan uga xumahay laakiin waxaan rajayaa inaad guuleysato waliba waxaa inoo balanaa xiriir la galaya interviewga haddii aad ku soo baxdo waxaan ka saaciidi doonaa su'aalaha ku saabsan interviewga haddii aan ka gudubno dalka Turkiga soo galeed iyo processka marleed ayadana waa ku sharxi doonaa maadaama anaga la baxnay bahda caawiye waxaan diyaar u nahay marka inaan idin caawino waliba si free aan idinku shaqeynaynaa marka waxaan idinka codsanayaa oo kaliya inaad ciwaankeena share galeysaan marka meeshaas aan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta aan barnaamijka kaga kulmi doono waxaan idinka tagayaa saaxiibayaal dunidu waa dulqaad dadaalkuna waa muhiim